Falastiin waa mahadsan tahay horta aan ku saxo safiirka Kenya lama eranin dowladda Soomaaliya ayadoo qabta tabashooyin waxay u yeeratay safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u samayno waxaana la faray safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo marka erid ma aha waa nidaamka diblomaasiyadda dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhici karta ma aha markii koobaad maxay tahay waxyaabaha aad ka dawlad ahaan tabanaysaan oo Kenya aad ka tabanaysaan wallahi markii koowaad waxay ahayd Kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga Soomaaliya u yeeratay dib ugu yeeratay annagana fartay safiirkeena fadhiya Kenya inuu Muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo marka annaga ma ahayn qoladii ugu horeysay oo sidaas samaysay dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragta wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi humanitarian security wajiyo badan xiriir leh baan nahay waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo marka markii hore Kenya ayay ahayd ciddii wax tabanaysay marka hadda maxaad tabanayseen adinka oo aad ku salayseen inaad u yeertaan safiirkeena wallahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay waana ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay taas waxaa ugu muhiimsan in Kenya in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta faragelin toos ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo waxay ka mid tahay 10 qodob ee ugu horeeya charterka ama axadiga lagu aasaasay African Unionka 1963 in aan dalna dal kale arrimihiisa dakhliga ku faragelin wasiir waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariska nala ah Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray dagaalkaasi wuxuu dhaxeeyay maamulka gobolkaasi iyo dawladda dhexe maxay tahay aragtida dawladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas aragti ah oo dawladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale ayadana tahay dal daris nala ah oo wixii ku yimaada oo ah maaragta ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni darro dabcan annagana waana saameynaysaa taas walba waa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo soo kala dhaxgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale Afrika nala ah ama gaar ahaan kuwa dariska nala ah aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhal ah waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamo Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dawladda federaalka asmara loogu tababaray ma jirtaa arrintaas waxa kala socoto arrintaas ma jirto arrintaas wax ka jira male wax aqli kala ma aha annaga ayaa u baahan ciidamadeena amniga ah inay halkan ka howlgalaan wax taas ma aha mid maaragtay aqli gal ahna ma aha macquulna ma jirto wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramay